Wax ka ogow xanuunada lagu daaweeyo toonta iyo malabka la isku daray. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji. Halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Toonta iyo malabka oo la isku daray ama la isku khamiiriyey waa jeermis dile heer sare ah, u roon caafimaadka caloosha iyo dheefshiidka. Waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka iyo dhiigkarka. Waxay kobcisaa difaaca iyadoo jirka ka saarto sunta detoxification. Waana sababta bukaanada qaato daawooyinka kiimikada ee kansarka lagula taliyo inay alaabtan isticmaalaan. Labadan shay mid walba waxa uu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah oo tiro badan. Marka la isku darana, waxtarkooda caafimaad ayaa sii kordha. Cunista malab saafi ah oo lagu daray toon cayriin ah oo aad joogtayso ayaa wax weyn ka beddeli doonta caafimaadkaaga, Ilaahay idankiis. Malabka waxaa ka buuxo maadooyinka sunsaarista ee loo yaqaano flavonoids iyo polyphenols, kuwaas oo la dagaalama hurka ama lurka jirka. Sidoo kale, malabku waxa uu la dagaalamaa bakteeriyada iyo fayrasyada. Toonta waxay ka mid tahay geedo daaweedyada fara-ku-tiriska ah ee ummado badan isku waafaqsan yihiin qiimaheeda caafimaad ayna soo isticmaali jireen xadaaraad hore oo caalamka soo maray. Carabtii hore waxay ku daaweyn jireen wadne xanuunka, dhiig karka, xubno xanuunka, artritis, ilko xanuunka, calool istaaga iyo infekshannada. Toontu waxa ay awood u leedahay in ay xakamayso khatarta ka dhalata wadne xanuunka iyo xanuunada ku dhaca marinnada dhiigga. Waxa ay yaraysaa kolestaroolka, waxa ay dejisaa dhiigkarka, sidoo kale waxa ay ka hortagtaa in dhiiggu uu guntamo, taas oo ah qaab qofka ka ilaalinaysa in ay xididada dhiiggu xirmaan. Toonta iyo malabku waxay ka mid yihiin daawooyinkii uu rasuulkeena suuban nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu nagala dardaarmay in aan xanuunada iskaga daaweyno. Faa'iidooyinka iskudarka malabka iyo toonta. Iskudarka malabka iyo toontu waxay kor u qaadaan caafimaadka wadnaha, waxayna yareeyaan dhiig-karka iyo kolestaroolka. Waxay ka hortagaan hargabka iyo ifilada. Waxay hagaajiyaan dheefshiidka, waxaana lagu daaweeyaa cillado badan oo dheefshiidka ku dhaco. Waxay xoojiyaan difaaca jirka. Sunta ayay jirka ka saaraan. Caafimaadka beerka ayay kobciyaan. Waxay caawiyaan miisaan dhimista. Toonta iyo malabku waxay ka hortagaan xanuunada hilmaanka keena sida dementia iyo Alzheimer's. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji. Halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli lagtaada, channelkeenana ku soo biir. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada. Waa wax agtada ka fudud, anagana wax weyn noo taraysa.